Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeen ee Radio Summit. Qodobada aad ku maqli doontaan wararka iyagana waxaa ugu dooran. Waxaa kasoo kordhay shirka uga soconaya maalintii labaad magaalada Dhuusamareeb madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Mucaaradka oo sheegay inaysan aqbali doonin in hay-adaha dowladda ee waqtigoodu dhammaaday ay maamulaan dalka Soomaaliya. Baarlamaanka Puntland oo meelmariyay hindise sharciyeedka diiwaanka codbixiyaasha maamulka Puntland. Dowladda federaalka oo sheegtay inay gacanta kusoo dhigi doonto Generaal Xuud iyo ciidamadiisa. Dadka dalka ka baxsan qodobka ugu xiisaha badan ayaa noqonaya militariga Myanmar oo mamnuucay adeegsiga aaladda Facebooka. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warka habeen ee warbaahinta Summit. U diyaar garooba qodobadaasi oo dhammaystiran oo idiin ambaqadan waa Cabdiqaadir Daawud Zeko. Kublawni xilli maalintii labaad uu galay shirka wadatashiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa la soo sheegayaa in isku soo dhawaasho laga dareemayo madaxda ku shirsan magaalada Dhuusamareeb. Wararka ayaa intaa ku daraya in wadaxaajoodka qodobka soo xulidda xubnaha baarlamaanka Somaliland ay ku lug lahaanayaan gudoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Gadeer. Ilo ku dhow shirka uu u socdo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo guddoonka gobolka Banaadir ayaa sheegaya in ilaa iyo hadda 3 qodob ee miiska saaran isla markaana isfahamka bilow ah ee laga gaaray ayaa waxaa ka mid ah kow arrinta gedo xalkeeda waxaa loo saaray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. 2 in ciidamo Amisom ah oo aan u dhalan wadamada Itoobiya, Djibouti iyo Kenya la geeyo Garbaharey. 3 in guddiga doorashada Jubbaland la geeyo degmada Garbaharey ee gobolka Gedo. 4 madaxweynaha Jubbaland ayaa la sheegay in uu doonayo in maamulkii gobolka Gedo ee Jubbaland lagu celiyo Garbaharey gaar ahaan duqa magaalada. Shirka ayaa la filayaa in maanta la soo gabagabeeyo iyadoo warar soo baxaya ay sheegayaan in warmurtiyeed laga soo saari doono. Mucaaradka oo sheegay inaysan aqbali doonin hay-adaha dowladda ee waqtigoodu dhammaaday ay maamulaan dalka. Qoraal oo ka soo baxay musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa madaxda ku shirsan magaalada Dhuusamareeb looga baaqay in shirku Golaha Midowga Musharaxiinta wuxuu hore ugu baaqay in shirka ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb uu noqdo mid loo dhan yahay oo ay ka qayb galaan saamileyda siyaasadeed, ururada bulshada si go'aanada ka soo baxa ay u noqdaan kuwo wada oggol ah oo laga meelmarin kara rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale golaha musharaxiinta ayaa waxa ay ka digeen inaysan aqbali doonin dalka ay xukumaan shakhsiyaad iyo hay-ado muddaxileedkooda dastuuriga uu dhammaaday. Goluhu wuxuu ka digayaa inuusan aqbali doonin in dalka ay xukumaan shakhsiyaad iyo hay-ado muddaxileedkooda uu dhammaaday ayaa lagu yiri. Baarlamaanka Puntland oo meelmariyay hindise sharciyeedka diiwaangelinta fadhiga 26aad kalfadhiga 47aad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland oo uu shirgudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland gudoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan ku-xigeenkiisa koowaad Cabdilcasiis Cabdullaahi Cusmaan, ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa maanta maalintii labaad looga dooday hindise sharciyeedka diiwaangelinta codbixiyaasha. Fadhiga maanta ay joogeen 42 mudane ayay xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland qodobka dooda uga doodeen xeerka oo lagu daray wax ka beddelka golaha iyo sidii hore loogu soo gudbiyay hindise sharciyeedka sida uu qabo qodobka 70aad dastuurka dowlad goboleedka Puntland. Hindise sharciyeedka diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa si faahfaahsan uga hadlay dadka xaqa u leh isdiiwaangelinta, habka diiwaangelinta, hirgelinta wacyigelinta diiwaangelinta codbixinta, waxa uuna ka kooban yahay 36 qodob. Ugu dambeyntii xildhibaanada golaha wakiilada ayaa cod u qaaday hindise sharciyeedka diiwaangelinta codbixiyaasha waxaana u codeysay ogol 40 xildhibaan halka 2 xildhibaanna ay ka aamuseen. Dowladda federaalka oo sheegtay inay gacanta kusoo dhigi doonto Generaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud iyo ciidamadiisa. Waxaa tan degan xaaladda magaalada Beledweyne kadib markii maanta uu halkaasi ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada uu hogaamiyo Generaal Xuud. Taliyaha ku-xigeenka qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Saalax Yacquub Saalax warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay ku raad joogaan Generaal Xuud iyo ciidamadiisa isla markaana uu sheegay in gacanta lagu soo dhigi doono. Sidoo kale taliyaha ku-xigeenka ayaa sheegay in Al-Shabaab aysan waxba
dhaamin maleeshiyaadkii saakay weerarka kusoo qaaday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Jenaraal Xuud oo wata maleeshiyaad uu ku abaabulay dureedka Beledweyne ayaa qaadacay doorashadii Hirshabelle ee ka dhacday magaalada Jowhar kaasi oo kusoo baxay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe, waxaana marar badan guuldareystay dadaallo lagu doonayay in meesha looga saaro cabashada ka taagan shacabka deegaanada gobolka Hiiraan iyo diidmada Beledweyne ee maamulka Hirshabelle. Akhbaaraadka dalka ka baxsan qodobka ugu xiisaha badan ayaa noqonaya caawa militariga Myanmar oo mamnuucay adeegsiga aaladda Facebook. Militariga xukuumadda dalka Myanmar ayaa mamnuucay adeegsiga aaladda Facebook kadib maalmo markii ay afgambi militari kula wareegeen dalkaasi. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in adeegsiga baraha bulshada ay ka qayb tahay xasilooni darrada dalkaasi ka taagan waqtiga xaadirkan. Shirkadda Facebook ayaa tan loogu isticmaal badan yahay gudaha waddanka Myanmar, iyadoona 53 milyan oo ah kala bar dadka waddankaasi ku dhaqan ay isticmaalaan aaladda. Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Warfaafinta dalkaas ayaa sheegtay in xayiraad lagu soo rogay shirkadda Facebook ay socon doonto ilaa iyo 7 bishan Febraayo. Guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa warka habeen Radio Summit. Anigu Cabdiqaadir Daawud Zakay idinla socotinaya. Cabdi Fataax Abdillaah ayaa farsameynaya. Intaan warkan kiisa xigaan ku kulmin